السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa Awaaji Tech, mar walba aad uga barateen inay idiin soo gudbiso wax walba oo ka cusub tiknoolajiyada. Maanta waxaan haynaa iPhone 6 Plus maanta review gareyn doonaa, unboxing u sameyn doonaa insha Allah taala. ku taxnaada inta ka dhiman videoga. waad mahadsantihiin. gudaha hadaa u sii galno sharaxaadeena kow waxaa sameyn doonaa wax walba oo boxkan ku jiro inaan ogaano. mobilekii waa kana sidaad u wada jeedaan waa gold, waa hal kaamiro. shaashadiisana waxaa waaye 5.5 inch. meeshii laga dheereynayay iyo meeshii laga gaabinayay waa kan. meeshan waxaa waaye meeshii oo silentig moodki laga saarayay. power buttonkiisi waa kan. sidoo kaleetana sim cardki meeshuu galayayna waa kan. USB-C-giisi iyo meesha ay sameecadda ay galayeenna waa kana. balaas sameecadihii banaanka ahaa sii daarano wuunoo soo kacay. maxaa ku sii jiro waa warqadii oo instructionska. waxaa waaye cirbadii yareed oo simikaarada iyo paperiski oo instructionska kulli waa kana. intaynoo dhig waxaa kusii jiro hadeetaan sida loo wada jeedo waxaa waaye sameecadihii. sida loo wada jeedo waa meesha sameecadihii ay ku wada jireen. ما شاء الله. كنا waxaa waaye jaajar keeni waana USB power cable. cable-ki waa kan sidaad u wada jeedaan. boom waa shaqeeye. sorry waxaa ilownay case-ki lagu keenay oo protectorka ahaa. case-kan koowaad waa lagu keenay taleefanka lagu keenay. waana case aad u fiican oona jilicsan marka si loo fiiriyo. sidoo kaleetana adag dhanka protectionka. sidoo kaleetana waxaa lagu keenay case aad u fiican. kaliya wuxuu xijin doonaa celin doonaa geesaha aa loogu talagalay. labadaanaana ku imaadeen. very nice right. gudaha waxaa usii gudageli doonaa oo sii fiirin doonaa taleefankeena. taleefankeena haday sidaaba sheegna waa gold. kaamiradan hore waa 8 MB. sidoo kaleetana kaamirada dambe waxaa waaye 8 MB. kaamiradan hore waxaa waaye 1.2 MB. meeshan displaygiisa waa 5.5 inch. resolutionka oo displaygana waxaa waaye 1080 1920. ما شاء الله. gudaha usii galno. taleefanka wuxuu ku imaadaa versionka OS-kiisa oo operating systemkiisa waxaa waaye 12.4.2. sidoo kaleetana RAM-kiisa waxaa waaye 1 GB. gudaha hadaa usii galno journalka aa tagno about-ka aa kasii tagno versionka softwareka waxaa waaye 12.4.2. wuxuu inta noo sheegayaa inuu yahay 64 GB RAM. inuu 64 GB memorygiisa capacity inuu yahay. laakiin available-ka
57.43 GB inuu yahay. CPU-ga uu isticmaalo waxaa waaye Apple A8 waaye CPU-giisa, sida Android-ka oo ma ahan Snapdragon iyo Exynos ah ma ahan. Baterigiisa waxaa waaye 2915 mAh waaye. waxaa lasoo launch gareeyay ama se lasoo shaacbixiyay taleefankan iPhone 6 Plus September 2014 markay ahayd. sidoo kale tana September 2014 ayadoo lagu jira suuqa la keenay. meeshan sida haday u sheegnaba nano sim ayaa galo oo simkeeni caadiga ahaa ayaa galo. memory-ga uu ku imaado waxaa waaye sida hadaba aragnay 64 GB, laakiin asaga total ahaan wuxuu ku imaadaa 16 GB, 64 GB, 328 GB. dhammaantoodana waxay ka wada siman yihiin 1 GB oo RAM ah. taleefankan iPhone 6 Plus wuxuu leeyahay featureska ugu weyn waxaa waaye fingerprint-ga oo aad iyo aad u recognize gareynayo sensorka oo soo jiidanayo ama se baranayo suulkaaga dhaqso u baranaya. meeshaana badanaana loo isticmaalaa home button-ka. ayadoo kooban warbixintii oo iPhone 6 Plus ku saabsaneed waa naga intaa. insha Allah intaan ku kulmi doono videogan iyo video la mid ah waxaan idinkaga tagi doonaa sidaan iyo si kasii fiican. haddii uu ku cajabgeliyay muuqaalka walaal like saar, haddii markii koowaad ay tahay aad channelka imaanaysana subscribe noo saar, asxaabtaadana la wadaag. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.